daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka Connected Case. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiiya anigu Axmed Kaasa Farxaan. Toddobaadkii 2 cisho Isniinta iyo Jimcaha ayay kala socotaan bartaan ku leenahay YouTube-ka ee Connected Case. Dhammaadka sanad walba jaamacadaheena waxaa ka soo baxa kumanaan arday. Ardaydaasi badankoodu waxay noqdaan shaqo raadiyaan. In yaroo ka mid ah ayaa iskood shaqo u abuurta kana qayb qaata shaqo abuurka dalka. Barnaamijka maanta waxaa marti igu ah Yaasiin Maxamuud Carab. Yaasiin wuxuu ka mid yahay ardayda ka soo baxday waxna ku baratay jaamacadaha dalka. Isla markii uu soo baxay kama soo fikirin inuu raadiyo shaqo. Markii wax maskaxdiisa ku soo dhacday inuu isagu noqdo shaqo abuure kana qayb qaata shaqo abuurka dalka. Dhawaan waxa uu sameeyay ganacsi dalka ku cusub oo dabcan uu ahaa markii ugu horeysay inuu ciise dalka lagu arko. waxa la yiraahdaa Tayo Painting. Barnaamijka maanta waxaynu Yaasiin ka wareysan doonaa waxyaabo ku saabsan ganacsigiisa. Yaasiin ku soo dhaw barnaamijka. aad baan ugu dhawahay barnaamijkaas aad baan ugu mahadsantahay martiqaadka ay soo martiqaadeen barnaamijka. Yaasiin mar labaad baan kaaga mahadcelinayaa sidaad waqtigaaga noo siisay iyo aqbalaada barnaamijka soo aqbashay. aad baan mahadsantahay Axmed. ujeedooyinka barnaamijka waxaa ka mid ah in uu dadweynaha la wadaago hal-abuurka cusub ee ganacsiga ku soo biiray iyo ganacsiyada buuxiyey baahiyaha hore oo ay ummaddu qabtay shaqo abuurna sameeyey. taas waxay qayb ka tahay ujeedooyinka waaweyn ee barnaamijka. Yaasiin barnaamijkan toos u geli doonaa sax si daawadayaashu u fahmaan waxna uga ogaadaan Tayo Painting bal xog guud oo ku saabsan laga sii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة هراء برنامجك Connected Case ألف مهندسين هاي مرتقات كذي وصل مرتقاتين. شركة Tayo Painting and Decoration waxay ka aasaasantay magaalada Hargeysa dhamaadkii 2018. shirkaddu waxay qabataa waxay adeegyadii koowaad ay qabatay waxay ahayd waa Painting and Decoration. macnaheedu waa nashqadeynta gidaarada. waa nashqadeynta gidaarada iyo painting iyo qofkii u baahan painting saafiga ah. waxaan kaloo ku soo darnay qaybtii dib u hagaajinta gidaarka decoration-ka. retaining gidaarka hadduu dayactiran yahay inaan dayactirkiisa dhammaystirno kabacdina painting iyo sharxaadna ku sii sameeyno. saas wanaagsan. intaan su'aalaha kale u gelinaysa xirfadan halkeed ku soo baratay? xirfadan horta waxay noqonaysaa hobby. taanu inta badan waan iska jecelahay somehow waxyaala creativity-ga ah in hadba waxa cusub aan sameeyo bulshada ka duwan. taas ay u dhalisay inaan taan sameeyo. miyay xiriir leeyihiin wixii aad jaamacadda ka soo baratay iyo shaqada hadda haysaa? ni Axmed meel bay iska soo gelayaan waxay iska soo gelayaan dhanka painting-ka qiimeynta ay iska soo gelayaan waayo qeyb wax ka soo baxay engineering marka qaybta painting-ka iska soo gelayaan. maxaa la odhan karaa way kugu dhaliyeen inaad shirkaddan samaysid? waxaan odhan karaa markii aan arkay baahida ay bulshada u qabto hawshan haddii aan fuliyo inay bulshadana aad ay ugu baahan tahay oo ay ka mid tahay sidii hore caadadeenoo ahayd in aan wax ka bedelo oo ahayd in guryaheena haddaad mid walba gashay waa isku mid weeyaan. marka hawshanna waa hawl fudud oo magaranaysaa qofkii aan magaranaysaa financialkiisa wax badan aan gaarsiinayn. marka adeegan wuxuu noqonayaa mid qofku ku noqdo mid sacrifice oo magaranaysaa mid aad u magaranaysaa uu aad ugu helo. waxaynu ognahay marka ganacsi la bilaabayo in marxalad badan laga maro oo qofka caqabado badan la kulmo ha ka mid noqoto ama ha ugu badnaato maalgelinta. miyay jirtaa cid idinka maalgelisay markii aad hawshan bilaabaysay? wallaahi hawshan markaan bilaabaynay waxaan inta badan ku saleynaynay bal wixii anagu aan awoodi karno oo hawshan hadba wixii fan aan heli karno ayaynu hadba ku saleynaynaa. marka shirkaddu hadba maalin kasii dambeysa way sii koraysaa
customer base helaysaa dhanka maalgelinta Axmedow hadba wixii jeebkayga karaankayga umaan ku saleeyay marka wax diyaanaka aanan awoodi karin kuma saleyn karno way hadaan waxaan awoodi karin ku saleyno waxay manaysaa in gacan qabsigiisna wuxuu u baahan yahay howli process iyo grant marka wixii aanu awoodi karno ma ku saleynay saasina hawsha inta qaleedaysiin bad shaqada ku bilowdeen wixii aanu hayno ma ku shaqada ku bilowday dhowrkii sano ugu dambeeyay dalkeena iyadoo ay marka horeba shaqooyinka xirfadda gacanta ay ku yaryihiin haddana waxaa kusoo badanaya mar walba kusoo kordhayay dadyoga ajaanibka shaqooyinka qurxinta gidaarada ama sida nashqadaynta sida decorationka waxyaabaha sameeya shaqaalaha tayo painting majnabi amsa dad dalka u dhashay may shaqaalu dhammaantood wax weeyaan waa dad Soomaaliya oo Hargeysa la degan aan barnay xirfadan oo qaabka loo shaqeynayo iyo shaqada sida tahay iyo qaabka uu shaqeyn lahaayeen hore waa dad ka soo shaqeyn jiray laakiin wadada shaqeyn jiray bay ahaayeen laakiin qaabka loo shaqeynayo xirfad ayaanu ka dhigay xirfadoodii ayaanu sii siinay khibrad si uu ugu shaqeyn karo shirkadda la fahantiisa xitaa uu ku shaqeyn karaa ma waxaad adeegsataan qaabka hore la adeegsan jiray tusaale markinjiga awalkii la isticmaali jiray waa isticmaashaan ma macnihi qalabka isticmaashaan waa qalab sidee horta qalabkan isticmaalnaa waxa weeyaan waa wixii dalka yaala weeyaan creativity ayaa keenaya in wixii hadba ku dhow ama ku yaala ama inaad wixii aad ku sameyn kartid way jiraan somehow waxyaalaha yaryar oo aan dibadda ka keeno sida nashqadaha iyo designada laakiin inta kale dhammaan jeeda paintinadu waxa weeye waa wixiinan wax way wareejiyay dalka weeyaan umaanu kala baranay sidii magaranaysaa la isku diri lahaa من وحنا كفاية سنوبي كده كان تاي وحنا هنا هو سنوبي هلا ما قدرنا يسينات بعض ما هتصن تاي عن أروق وسيس عنه مركب معامل كده لا صح صح تصالحان منه قابل عيبه ولا معامل شان سيبت أقيمة سنة وشو يسوي بهاي معاملكو هرت الله بس يعود ونوي ماذا مرة حويان سووا intuu TV ama meelaha kale ka soo arkay ama qof kale oo aan hawshan u qabanay oo intuu ka soo arko qofkaas markaa na soo siiyo ka bacdi soo xafiiska ku yimaado marna waxa weeye waa social media inuu isna ka soo arko oo noogu yimaado sometimes waxa jirta in halka social media ay nagala soo xiriiraan aan wixii designada iyo wuxuu baahan u dirno oo arko ku doonayo markaa uu noo soo reply gareeyo kabacdina locationkii halku joogaan ugu tagno goobtii doonaya aan tagno kabacdina aan goobtii u tuso inta la qabanayo shaqadii intuu u baahan yahay quraata kabacdi waan aragnaa waan qiimeynaa markaan qiimeyno ayaan u dirnaa qiimihii kabacdi qofkii oo qiimuhuna waa qiimo aad bulshada ay awoodi karto kuma saleyna inta badan qiimada dadka dhabar jibinaya ama sida dadka ajaanibta inta badan ay sameeyaan oo qofkii odhanayo magaranaysaa lacag markuu ajaanib arkaba dee wuxuu ku jeergarooyaa lacag adag marka anagu taa waanu ka duwanahay oo waxaan sameynay in qofkii xaqiisa joogay muwaadinka inuu awoodi karo shaqadiina si doonayna loogu qabto kabacdi waxaan doonaysaa in halkaa qiimaha aan magaranaysaa qofkii qiimihii ku waafaqo oo kabacdi noo soo diro kabacdin hawshii halkaa step by step aan ugu dhamaystirno time-kan u sheegayna waa time frame waxa weeyaan 2 days 3 days sometimes way ka yar tahay less than 1 day ba hadba waxay ku xiran tahay hadba mashruuc inta uu leeyahay shaqa abuurka sidee bay uga qayb qaadatay tayo painting salaan shaqaaleynta ilaa ka shaqeeya waxay ku xiran tahay hadba shaqooyinka hadba waxaan ku xiran tahay shaqooyinka suuqa yaala waxa jira imika ilaa 3 oo dhalinyaro jiro aan anaguna saaxiib nahay oo isla caawinaa oo isla shaahaynaa hadhow taa markay shaqooyin soo dhacaan oo kale waanu shaqo tagnaa
barnaamijku saaxiibeel gabagaba ayuu ku dhow yahay. Waxay iga xasuusinaa haddii aad hadda kusoo biirtay barnaamijka fadlan subscribe garee page-ka aanu ku leenahay ama bartaan ku leenahay YouTube-ka ee Connect Education gamaaleelkana kurso si mar walba aanu muuqaal soo gelino muuqaalkaasi toosoo adiga kugu soo gaadho. ujeedooyinka barnaamijkan ku celinaya mar kale waxaa ka mid ah in wixii cusub bulshadu u baahan tahay ganacsi ah ee weliba dhalinyarada dalku ay hal abuureen inaanu mar walba bulshada la wadaagno si intay xogtu ka maqantay xogta u gaadho cidda u baahnaa ay uga faa'iidaysato. waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijkaasi. maxaa idinka caawiyey ama gaar ahaan idinka caawiyey ganacsiguna noqday mid hore u socday? wax kastaaba horta qadarkii ilaahay bay ku xiran yihiin dadaalkuna waa halkiisa. qofka inuu magaranaysaa dadaal sameeyo uu ka dhigo ganacsigiisa mid successful ah oo mid hore u socda waxay ku xiran tahay qofka dadaalkiisa iyo siduu hadda motivatorka ugu yahay. tan labaad waxaan odhan karaa adeegan oo ah adeeg aada ugu cusub bulshada oo bulshadu aada ay ugu baahan tahay taasaa keentay marka inuu noqdo adeegan mid hana qaaday oo hore u socda. muddada shaqada kusoo jirteen miyay jirtaa wax carqaladaa oo idinka horreeyay uga faa'iideyn karno daawadayaasha ummadda iyaga raba inay abuuraan ganacsi? way iska badan yihiin carqaladuhu iyo aada u badan yihiin waayo markaa shay la bilaabayo waxaa la yidhaahdaa the problem is a project. problem hadduu qofku u yimaado waa project kale weeyaan. marka waxay leedahay timekeedii dhabar adeegeedii maalgelin kalaad ayaa laga yaaba inaad u baahatid. marka carqaladuhu way badan yihiin laakiin carqaladaha ugu weyni aan odhan karo waa midha ma garan karo waayo carqaladu waa markaas ay ku timaado sidaad u heli lahayd maad fuligeed qabanaysaa. Yasin baad mahadsan tahay. su-aasha ugu dambaysa barnaamijka doonayna aan ku weydiiyo kuna soo gudbina barnaamijka waxay tahay miyay jirtaa wax fariina oo dadweynaha uga faa'iideynayso janiska aad maanta ku haysatid barnaamijka Connect Education? waxaan leeyahay magaalina Tayo Print Decoration waa adeeg hufan oo dhan walba ka caawinaya si aad goobtiina ama gurigiina aad ka dhigtaan goob aad ugu dekeysaan aad ugu nasataan. Tayo adeegaas ay idin haysaa waa aad ka caawinaysaa. marka waxaan leenahay mar walba soo dhawaada iyo gacmo furan warka baad leedahay bulshadahay. Yasin aad baad u mahadsan tahay. labadii maslaxad kaaga mahadcelinaya barnaamijka. daawadayaal barnaamijkaasi ku dhayahay aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. mar walba waxaan ugu talagalnay in aan xogtan idin loo yahay ay noqoto xog aad ka faa'iidaysaan ka ganacsi ahaan ka bulsho ahaan iyadoo iyaga rabeenay inay ganacsiga bilaabaan. waxay iga xasuusinay in barnaamijka barta aan YouTube ku leenahay fadlan aad subscribe garaysaan oo mar walba si mar walba ay muuqaalada aan soo gelin si toos ah soo gaadhaan. aad baad u mahadsantihiin.